soo dhawaaw madaxweyne dadkan Facebook ku jira ee ku daawanaya ee kursiyada kaaga kacay maxaad dhihi lahayd marka koowaad farista aad iyo aad u mahadsantiin madaxweyne su'aalo waalan ku weydiin karnaa xorta saaca waxaa la sheegay gabar tufaax laho inaad dhashay ma ku tali jirtaan nin fiican inaad siisaan madaxweyne aad u weyn aadaan ugu tali jirnaa tufaaxaas haddii aad Puntland geysaan ka waran oo nin madaxda Puntland kamid ah aad ku dartaan maya anigu madaxda Puntland ma leedahay ma garanayo muxuu ahaay madaxda Puntland macnaheedu waxa uu yahay okay Axmed Madow hadda ka hor ayaad asigana isla gabadhan u diiday sabab madaxweyne iskuul male jaamacad male shaqo male tuuladii uu ku dhasho iska fadhiya waxa tuuliskii nolosha ma haysto yani nolosha wixii fududeyn lahaa ee uu isticmaali lahaa oo dhan gacantiisa kuma jiraan siilaanyo asiga haddii aad siisa ka waran oo number 2 ka dhigto inantaada sida baxaasuu leeyahay caruura u joogto ilmihii waa baahiyin caano ma haystaan muxuu ahay daawo ma haystaan male xasan daahir haddii aad gabadha ku qabato ka waran maba guurso hooyo aabbo waayeel ah u joogo waa rafaadsiin wuxuu ku tari karana mala hooyadiisa aabbihi soo rajo xumo waad bis adkaysay oday okay qanyara haddii aad siisa ka waran reer oo tabar yar oo tiro yar oo ka dhashay caadi iska dhig oo adigana yaad tahay aniga reer hebelaan ahay oo laandheeraan ahay na soo xasuusi bal al-shabaab gabadhaada marka ay damceen maxay ku dhaheen odagii sanka taagi jiray magaciisa gabadhiisa la weydiin maayo murtad waaye muxuu ahay hortiisa lagu meherina and so on ka gudub aniga sababta aad gabadhaada igu diiday maxay tahay aad iyo aad u yar tahay waxaas waa caadi horta imisa sano ayaa xukunka kaaga dhiman 2 sano 3 sano gabar waaye waxaan hadda ayay bislaanay fiiri inta kaaga dhiman xukunkaaga ma shawarma iyo kuskus iyo mayonnaise ka dharjisid haddii aan kaa sugo sidaasna aad samaysid ka waran laakiin waa ra'yi aad iyo aad u fiican waa samaynaynaa haddii aan la yidhaah ka gudub waa damac badan tahay niyahow imise milyan ayaad ku rabtaa gabadha 25 27 maxaa waaye sababta aad lacagta badan u sheeganaysid wax aad jeceshood iska hesha miyaa jira wax kastoo aad jeceshood kula fiican qiimaad u hurtaa shaatiga kuugu jira ama garbasaarka aad haysato qiimaha badan lacagaad u quurtay midaa jiro aadan rabin oodan qaadan lahayn midaad doonaysidoo beesiisa qaali tahay xataa lagu yiraahdo aad beesas qaaliga aad bixinayso lacagta intaas leeg marka aad sheegato dadka maxay is dhihi karaan qiyaas oday reaction waa laga yaabaa in la yiraahdo war odagii madaxweynaha markaan waaba waashay bal sidoo raba ha loo yeelo ha loo diro lacagta uu sheeganayo in la yiraahdo waa suurtagal lacagtaas haddii aan bixin ka waran adiga ama ii awoodaa inaad ii yeeshid codsigayga anigana ma kuu awoodo intaas inaan yeelo 10 milyan waa ku siiha laakiin awoodada miigu dari dad baa iska xanaaqi kara videogan marka ay daawadaan ayagoo og ujeedada videoga inay qosol tahay marka madaxweyne maxaad ka tiri wiilkan aad sodog u tahay Axmed Kidiyeel dhaho dadaalka iyo muxuu ahaay professionalismka oo ka wado muxuu ahaay arinta media waa ku mahadsan yahay amaana uu ku mudan yahay mahadsanid dadkan indhaha taagaya ee ku daawanaya ayagana maxaad leedahay waa dhamaad sheekadii let's go home aan socono caadi iska dhig si fiican dadku u macsalaamayno waxaan rabaa caawa inaan intaas ku ekeeyo aad iyo aad ayaan mar kale idinku mahad celinayaa waa mahadsantihiin Im Radio ist eine Pute, im Radio ist eine Pute, die macht Kuckuckucku, der Gockel Kikeriki und die Henne Gock und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept.